waxay noloshayda u bedeleen qaabka ugu fiican ee loo noolaan karo ruux ahaan iyo cilmi ahaanba. Waagii hore waxba kama dhigan jirin isticmaalkooda oo waxay ila mid ahaayeen applicationada kale, laakiin markii aan si dhab ah u bilaabay isticmaalkooda muddo 2 sano ku dhow, waxay noloshayda noqotay mid ay ka buuxdo farxad iyo wanaag. Xitaa mararka qaar waxaan isweydiiyaa, maxaad mar hore u fahmi weysay? Hadda ku dhowaad internet iyo telefoon waxaad isticmaali jirtay muddo dhowr iyo 10 sano ku siman. Maxayna dhalinyaradeenna uga baraarugsanayn isticmaalka applicationskan? Maxay ugu mashquulsan yihiin applicationo aanan u diyaarinaynin cilmi ahaan iyo ruuxiyad ahaanba, oo ay ka midka yihiin TikTok iyo Facebook? Applicationskan aan kuu sheegi doono ma ahan kuwo cusub, waa kuwa aad taqaano. Xitaa marka aad maqasho waxaa laga yaabaa inaad la yaabtid. Si walba ha noqotee, waan kuu sheegi doonaa. Soo dhawaada, magacaygu waa Yacquub Xasan. YouTube waa halka aad hadda iga daawanaysa, waa madal maalin kasta la soo geliyo intaas oo kun oo muuqaal ah. Haddii aan dib u fiirino marxaladihii ay soo martay, aasaastaankeedii waxaa lahaa 3 nin oo kala ah Steve Chen, Chad Hurley iyo Jed Cream, waxayna soo heleen sanadka markuu ahaa 2005. Muuqaalkii ugu horreeyay ee YouTube la soo geliyo cinwaankiisa wuxuu ahaa Me at the Zoo, waxaana soo geliyey mid ka mid ah aasaasayaasheedii oo lagu magacaabo Jed Cream, wuxuuna ku sugnaa beer xayawaanada lagu xanaaneeyo oo ku taala San Diego ee Mareykanka. Sanadkii ku xigay ee 2006 waxaa isla durbadiiba bilaabantay koritaanka YouTube. Isla sanadkaas YouTube waxay ku dhawaaqday inay $1.65 bilyan kula soo wareegtay YouTube suuqa stock marketka. Sanadkii 2007 waxaa si rasmi ah u bilowday dadka inay lacag ka sameeyaan YouTube-na ay dadka lacag ku siiso muuqaalada ay xayeysiinayaan. Haddii aan intaas kasoo gudubno, YouTube wuxuu noqday aalad waxbarasho midda ugu ballaaran ee xilligan la joogo. waxaa wax ka barto dad badan oo caalamka ku kala nool. waxaad ka helaysaa muuqaal noocii aad doonto. Aniga ahaan YouTube waxaan ka bartay waxyaalo tirabeel ah, waxaana ka mid ah haddaan hal haba ka soo qaato sida muuqaalada loo sameeyo, loo jarjaro, sida codadka loo duubo. Intaas waa hal faa'iido oo keliya. Dabcan way jiraan xirfado kale oo aan ka bartay oo aanan rabin inaan halkan ku sheego. Maxaad u malaynaysaa marka adigana waxa aad ka baran karto? Casrigan waxaan haysanaa fursadii ugu ballaarneed ee aan wax ku baran karnay, sababtoo ah qof walba oo naga mid ah YouTube wuu daawadaa. Ha noqoto dadka daawada madadaalo oo ay dadku sidaas u badan yihiin, dadka ka daawada filimaanta la soo jelay, dadka daawada wax walba oo niyadaada kusoo dhacayo. Marka maxaa inoo diidayo inaan cilmi ka barano oo aan aqoonteena sii ziyaadsano si birri mustaqbalkeena inoo anfacaan waxaas aan baranayno? Waxaa jiro fikir ah waagii hore culimmadeenna hal xadiis oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sugan ama laga wariyey inay soo helaan waxay ku qaadan jirtay muddo bilooyin ah. Waxaa laga yaabaa qaarado iyo dhul badan inuu soo jaro si uu u faa'iideysto hal xadiis. Bal suureyso, maanta annagoo wax walba haysana ayuu hamigii naga dhammaaday, xitaa ku fikirin inaan wax ka barano aaladahan Ilaahay noo fududeeyey oo nolosheena dhinac walba ka yaalo: telefoon, laptop, computer, internet. Bal aan dib u fikirno waxaan ka baran karno YouTube iyo sida aanan uga faa'iideysanin. Applicationka labaad ee nolosheeda wax badan ka bedelay waa kitaabka Quraanka. Dabcan qof walba oo naga mid ah telefoonkiisa waxaa ugu jiro kitaabka Quraanka ee sharafta badan. Aniga waxaan isku dayay marka inaan kitaabka Quraanka ama 30 juz inaan ugu badnaan 10 maalin ku dhameeyo, amaba aan ku dhameeyo muddo 7 maalin ah. Haddaba sidee igu suuro gashay? Waxaa jiray wiil aan saaxiibanahay ama walaalanahay, waxaa lagu magacaabaa Cawil, ayaa maalin wuxuu ii sheegay inuu jiro group WhatsApp ah oo dhalinyaro ay iskugu imaadaan oo lagu challenge gareeyo in isbuuc walba Quraanka lagu dhameeyo 30 juz muddo 6 maalmood kadib ama isbuuc kasta. In anigana Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ii ogolaaday inaan groupkaas ku biiro. Hadda groupkaas wuu burburay, dabcan ma sii jiro, laakiin faa'iidada aan kala haray ayaa ah inaan joogteeyo akhriska Quraanka. noloshaydana waxay isbedeshay 180 degree. bal qiyaas wiil dhalinyaro ah oo waxbarasho ku jira oo aanay la weynayn ama aanay micno buuran la lahayn in laga shaqeeyo korinta iyo ilaalinta ruuxda. waagaas aan baranayay joogtaynta, dabcan waxaan ahaa qof dadka la mid ah oo aanan ka duwanayn, balse waxaan awood saarayay in challengegaas aan ka soo baxo. taasna waxay i siisay inaan kasbado caadadaas. muhiimadana ma ahan inaan ku faano, muhiimadda waxay tahay adigana inaad samayn kartid caadadaas si ciriiriga nololeed aad u dareemaysid uu kaaga yaraado ama aad kaga baxdo, noloshaadana aad u mahadiso haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala idmo. haddaba daawade, adiga noloshaada ma ka taxadirtaa waxa aad daawanayso, iyo sidoo kale ma leedahay caado Qur'aan akhris ah? jawaabtaada qaybta commentiga ayaan kaa sugaynaa insha Allah.